halkani waa santarka Heegaale oo ka tirsan degmada Danood ee gobolka Doolo waxaana ka da'ay roobab mahiigaan oo geystay khasaare iskugu jira naf iyo maal kana barakiciyay dadkii deganaa santarka Heegaale ayadoona inta la sheegay uu ku geeriyooday hal qof dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay roobabkan xoogan ee ka da'ay santarka Heegaale ayaa baaq u diray hay'ad dawladda federaalka Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale dawladaha dariska la ah hadaba dadkan khasaaraha ka soo gaadhay roobkii ka da'ay santarka Heegaale ayaa xaafadahoodii waxa ay ka yihiin dibadyaal waxayna u baahan yihiin gurmad degdeg ah ugu baaleeyay qof islaami xagga igama xigin magaalada ana ugu baaleeyay meeshii aanu joognay halka cunaha markii ay aniga ay marayso laba caruurana aan shandada korkooda intaan saaraysaa u hayo yaa dad aan dhalay oo xaafada ka soo orday ii yimaadeen aniga iyo laba caruur buu laabta midna gacanta ku jiiday midna laabta ku qaaday marka inta aan xignahay wixii aan watay mood iyo maal isagii inama dib ugu noqday oo 7 riyaad meeshii ka soo saaray argii noo xariisna intii kale balligaas waxaan soo gaaray waxsaana aan fara badan hadaan santarka Heegaale ee deegaanka gaar ahaan aniga aan 107 neef ay joogay waxaa ka hadhay 14 neef gurigeena waxaa qaatay biyo waxa la cuno iyo waxa la xidho midna kale aan saddex qoys baan ka tirsanaa oo isku jira laba gabdhood oo aan dhalay iyo aniga dad mooyaane anagu dooyo mahay arigii waxba iga hadhay xaafadaha iminka xiran go'doonka dadkii deganaana waa laga soo daadgureeyay banaanka loo saaray oo iyaguna iminka wax ay gacanta ku hayaan ma jirto waxaan ugu baaqayaa oo aan aad iyo aad mataqaana ugu dhiirigelinaya dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kilinka shanaad Soomaali weyn qurbaha meel kasta ay qof Soomaali joogo waxaan ugu baaqayaa in ay gurmadka dadka lagu taakuleeyo Soomaaliyeed ee dhibaatada weyn haysato ay ka soo qayb qaataan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Cumar waxaan leeyahay madaxweyne dadkani waa dadkaagii waad aragtaa sawirkooda waxa ku dhaxay meesha ay u hodeen waad aragtaa madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa dadkan gurmad degdeg ah ma jirto ilaa habeen hore iyo habeen caawabeen kala ba soo galiyo meel ay wax ku karsanayeen dab ay shidanayaan xaaladooda imika nololeed ee qoftaruuga ayaaba aad u adag waxaa jirta xaalad caafimaad darro ayana walwal ka qabno oo xoolihii fatahay biyuhu qaateen oo ku jira biyaha oo balliga dul waran ilaa saaka wixii tabartayada ah ka soo gurnay qoysaska barakacay haddii aan dib ugu laabto iyo hantiga maharadaha ee burburaadii aan xoogay dib ugu laabto iyadoo ay jiraan guddiyo aan u xisaaray oo u fuurgalay xaaladda dhabta ah ee qoysaska barakacay iyo xoolahooda burburay iyo maxaa ku dhaca meheradaha ganacsiga burburay guddiyo aan u xisaaray baa jira guddiyada faahfaahin doona haddii aan xog ka sii bixiyo sida ay guddida nala shargalisay ama nala soo wadaageen meheradaha burburay maxaa ku dhaca dadku waxyeeleeyay u qaaday waa 100 meheradood iyo in ka badan 100 meheradood iyo in ka badan hantiga ku burburay dhaqaalaha ku burburay waxaan ku ashmin gareynay ama lagu qiyaasay ama ay xog ku bixiyeen dadka maartay dhaqaalaha ku burburay markii la wareysay $75,450 iyo 7 neef oo ariya 567 neef oo ariya baan ku qiyaasnay waxa uu dadku gaaray ama biyo ay fatiyeen reer miyiga u jira hal saac iyo badh magaalada Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya buu hodle